بسم الله الرحمن الرحيم magacay waa Tayasir Jaambar Xaashi oo jooga degmada Booq dhammaan ummadda Soomaaliyeed oo dunida daafaheeda kala joogta ummadda reer Booq iyo ummadda Soomaaliyeed deegaanka iyo Soomaali weynba waxaan leeyahay maanta waxaan haysanaa horumar iyo nabadgelyo lagu faani karo xaqiiqatan madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar waxa uu wadankan ka soo saaray hog iyo ceel asagoo ku dhacay aad u sareysa hoggaas iyo ceelka waxa ku riday TPLF xogka Cabdile qaybta ka ahaa waxaan garanayaa degmada Booq dhibaatooyinka hareeyay oo wali maanta ay qayb badan la daala dhacayso waxa uga tagay kaligii taliyihii TPLF iyo Cabdile xaqiiqatan wuxuu yiri ay yaxtag ee la reeb xaqiiqatan TPLF waxay haysatay wadanka 30 sano ku dhawaad 30kaasna waxay ka tagtay gacan aad u culus dadka qayb baa fikirkooda markaa fiirisa aad aaminaysaa systemka qayb ku jirta inay TPLF dhashay oo wax horumar ah umada kala diriraya madaxweynuhu iyo wasiiradu qaabka ay u garanayaan dadka anagu ma naqaan laakiin anagu waxaan u garanaa shacab ahaan qofkaas mas'uuliyadda loo dhiibay kursiga haysta qaabka uu adeego hadduu geed beero hadduu umada u naxariisto haddii kursiga xilligii loo baahdo la helo haddii xafiisku umada u wada furan yahay haddii bulshada horumarkeeda ka talanayo qofkaas waxaan ogaanaa qof muwaadin oo sax ah inuu yahay haddii aan ku aragno qofkaas inuu ka sheekeynayo meheradaha isku dirka dadka kala qoqobinta isku dhiibka hubka shacabka oo la iska horkeeno qabiil la iska horkeeno horumarka oo aan umada looga faa'iideyn qofkii u baahan in la waraabiyo haddii suuli loo sameeyo biyo la cabaaba la laayahay suuliga maxaa lagu galaya waxa ka muhiimsan beer in loo sameeyo biyaha ku cabo way fududahay waxa ka muhiimsan qofka in beer loo sameeyo waxa ka muhiimsan wada international in la sameeyo waxa ka muhiimsan layr oo ka faa'iideysto qaybna ku ganacsada qaybna oo soo kaga faa'iideysto inuu helo systemka marka qofka cabdi ilay iyo systemkii aaminsanaa TPLF waxaas horumar waa la diriraya waxa la leeyahay miisaaniyada wuxuu ku dhameynaya halaloosin iyo halbooqad meel yahdo meel ay aad garanayno tuuba soconaysa tii cabdi ilay shuru jiray oo kala waa report qurux badan reportkood laakiin ma arkaysid meel ay wax yaalaan kaamirada ma qabanayso xaqiiqatan dadka noocaas ah hadda intooda badneed waa la ogaaday annaka intaan hadda ku jirnay Booq inaan hormarino dhexda marada ku xiranay oo dhalinyaro ahaan iyo odayaal ahaan iyo dumar ahaan isku abaabulnay inaan madaxweynaha garab istaagno dadka madaxweynaha fashilanayana inaan gacan bira kaga qabanno degmooyinkaana laga dumiyaa dawladaha degmooyinka waxa wax ka dumayna waa dadka systemka ku jiro oo runtii madaxweynaha lidiga ku ah dadka dhibaatooyinka weyn geysan kara qof shacab wax weyn ma geysan karo runtii qofka shacabka gidaar baba la iskaga xiraa laakiin dadka kicinayo oo xirayo oo horumar marka laga hadlo dhibaataynayo shidada u geysanayo waa dadka fursadda maamul hela ama kursida ku fadhiya ama raba si qabiil ah inay ku haystaan oo dadka kale aqoonta iyo horumarka laga diriro qofka la bajiyo qofka maaragtay markuu hadlo ama wax ka hadlo maaragtay la gumaysto maskaxda laga haysto waa TPLF waxay ku shaqaysan jirtay maanta 7 sano aan haysanay horumar fiican madaxweynaha wax badan Booq soo gaarsiiyay xaqiiqatan 7 sano horumarka sidii la rabay inuu dhaqaaqo uma dhaqaaqin wax badan oo inaga dhiman baa jira wax badan oo ku qabsan karnaa jira waxaan u baahanahay inaan naabaqin waxaan u baahanahay inaan madaxweynaheena garab istaagno waxaan u baahanahay shacabka Turkiga oo kale inaan noqono madaxweynaheenu garab buu rabaa heel buu rabaa intaasoo degmood iyo intaasoo gobol baan nahay wuxuu madaxweynaheenu baaq ku bixiyay in saboolnimada aan ka baxno waxaan uga bixi karnaa inaanu u ogolaano dalkeena inaan u dhiman karno inaan madaxweynaheenu difaaci karno aniga hadda intaan dooday waad arkaysay wiilal adeer u ahaa baraha shaxiga caayay kuwa kale adeer u ahaa qadaraasyo la igu siiyay aniga idilaa hub ii qaatay wiil waa ku dilayna iskoolada intay ila baxeen waxa soo dhan waxaan u arkaa wiilasheedii inay yihiin laakiin problemkiisku inuu ku jiro TPLFT arxanka darnay oo fikirka madhaleysnimada awaday inay wali Booq ka talinayaan gaxandada ay ka tageen wali ay joogto walaalahay iyo dadkayga iyo ehelkay inay fahmaan way adagta wax badan baa wax lagu dhawaatanaya ninkan kuraasteena weyn dhaafinaya ninkan dad kala ku shaqaysanay ninkan wax kale u arka 150 kiisas baa la ii soo dhigay intaas oo dhalinyaro baa loo xiray intaas oo dhalinyaro baa loo dhibaatay dad ganacsiyaal reer Booq baabuurtoodii ay wataan waa lagu dhibaateeyo baabuurtoodii hubbaystaan oo laga waayo hub oo la diidan yahay raba noloshooda laga xumiyo xaqiiqatan taasna way ku fashilmeen caqabadaha ugu waaweyn 12 caqabadood tii ugu darneed dilka ahayd waa fashilinay waxyaalahan ku guuleysanay bay kamid tahay waxaan hadda diyaarinay guriga aan lahaa hotelkayga inaan gado bakhaarkayga inaan gado waxaan u gadayaa bulshada degmada Booq laamigii ugu horeeyay oo Booq ka dhisnay 2 kilomitir waa soo qiimeynay
kabanigi waa u tagnay annagoo dhalinyar reer booq iyo odayaashayadii waxaan rabnaa inaan bilowno dowladayadana aan ula tagno waxay iyaduna naga bixin karto waxaan gurigayga iyo hoteelkaygana u gada naftayda ama u waayi lahaa booq inaan hantidayda ku bixiyo aakhiradayda guri ka dhistana diyaar baan u ahay adeerkii Ruusa Xaashi baa wuxuu igala ballamay inta aan noolahay booq inaan dhidir iyo waraabe iyo dhurwaa aan raalli uga noqon dadka cunayo u soo dhacaya xaqiiqatan waxaan u baahanahay isbeddelkii madaxweynuhu intuu wax weyn baan helnay waxay naga dhimanna waan helaynaa reer booq waan isku tashanaynaa qofkii xabsi u galay qofkii loo dulmiyey qofkii fayl laga saaray qofkii shaqaale dawli laga cayrshay qofkii ciriiri la geliyey qofkii dhib badan arkayow ilaahay baa miisaanka xasanaadka kuu saaraya booqoo green ah booqoo beera ah booqoo laamiya booqoo qurux badan booqoo model ah booqoon garacad mataanaynay baan arki doonaa waa dhow ma rabno inaan is aarsanno ma rabno inaanu maaragtay iska argoosanno ma rabno dadka dhibaatada nagu sameeyey inaanu maaragtay dhibaatayno waxaan u baahannahay inaan ayaka saxno oo ayaka hagaajino oo ayaka aan dhahno xafiisyada waxa lagu haysan karaa waa horumar waa inaad bixisid adeegii service waa inaad bixisaa waddooyinka hagaajisaa magaalada qurxisaa waddanka waxaysaa mashaariicda uga faa'iidaysaa meelaha ku habboon taasaa waddanka lagu haysan karaa runtii laguma haysan karo juubjuub iyo khasab iyo qabiil iyo kursi iyo awood waxba horumar ma qabanayso booq mid ah booq walaalo ah booq isku mid ah baa maanta waxayna taraysaa shalay anuu keligaa booq doodaya maanta reer booq oo dhan baa doodaya reer booq oo dhan baa markhaati furaya reer booq oo dhan baa waxa jira sheegaya waayo dadka afka qabanaa annagu waxaan rabnaa shacabkii turkiga oo kale inaan noqono madaxweynaheennana garab istaagno xaquuqda aad isba inooga maqan raadsanno dhulkeenna duulaanka lagu yahayna aan difaacanno haddaanaa taa samayn degmadeenna aanaa qurxin degmooyin kale aanaa u gudbin ma noqon karto dad guulaysta ma noqon karno xaqiiqdii waxaa la rabaa inaan isku samirno waxaa la rabaa fikirka khaldanna inaan isla wada aragno intaasaan ku gabagabaynayaa waana guulaysanay waana soo bandhigi doonaa haddii alla laamiga markaan dhagax dhigayno bulshadana waan uga faa'iidayn doonaa geesinimaa loo baahan yahay